waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal maansayahanadii waaweynaa ee kolba colkii ay la duulaan tixaha maaweelada iyo daawashada ugu roonaan jiray dhowrka jeerna hasha gabay maansadooda ku xusay waxaa ka mid ahaa darwiishkii dagaalyahanka ahaa ee Ismaaciil Mire la oran jiray. intaas markaan idhi waa hubaa intiina taariikhda iyo suugaanta daraawiisheed wax kala socotay inaad istiraahdeen rag allow waa kan Ismaaciil soo hormariyee ma wuxuu u jeedaa goobtii ruuga ee 1913 daraawiishtii uu ammaanduulaha u ahaa ay kaga guulaysteen ciidankii gumaysiga Ingiriiska, goobtii ay koofil ku makali jireen ee geelii lagu dirirana ay iyagu u adkaadeen. waan hubaa inaad istiraahdeen tolo ma wuxuu u jeedaa markuu taleex ku soo noqday gabaygii xog waranka ahaa ee Sayid Maxamed uu Ismaaciil ka hortirin jiray kana kici jiray annagoo taleex naal jahaad taladii soo qaadnay 700 oo darwiish togatay neef doora sayidkayagu tii uuna yidhi toro ku hansaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacab qaybi ilaahay ah tabantaabiye ducada noo tuumi. gabaygii uu ku sheegi jiray 11kii haraadee uu isagu geylaa ka helay hasha gabayna intuu ku xuso uu ku oran jiray 10 gool tabaadiga dhigay iyo 10 unungooyo iyo 10 tiftii hore rimay oo taani lagu qooqshay iyo 10 abeer toglono tikhilka qaarmooda iyo 10 irmaano aniga la igu taageeray iyo taan eryoon jiray markay 10 tahee joogto been laguma tooqiyo afaan taabud noqonayne intaa xarunta waa tubay xaq waa lagu tagaadaayib. ujeedadaydu ma aha inaan idinku jalbeebiyo gabayga caanka ah ee aan hubo inay Soomaali badani wax ka taqaan. kanaan maanta idin hayaa waa sida ta'laydaas mid aan caan u ahayn lana xilli ahayn asii aan ka dhicin lagu dherarin karo. hilaada waa bartamihii 1920 qarnigii 20aad ololihii dagaal ee Ingiriisku uu daraawiish ku xasuuqay weli lagama biskuran. mirashi iyo jiidali bixin iyo wow dooxada saraareed taleex dooxada qowlo boocame iyo dhammaan dhulkii ay qalcadaha ku lahaan jireen ayay meydadkoodii iyo madaxyadoodii oo qalalay wada daadsan yihiin. gumaadkaas wixii ku baxay kuma baxee wixii ka soo doogay weli dhaawacoodii iyo dhiiggoodii baa tafiq leh. maxoolahoodiiba waxay u qaybsameen waxay ciidamadii gumaysigu boobeen qablinkii dayuuradaha wax ka baynuunay iyo inta ceelashii laga sumeeyey wax tarab u leeday. si kale kuma garatide maantaa ninkii rag ahi wuxuu ahaa qoyskiisii wixii ka haray kii la baxsaday oo iyaga oo weli nafi ku jirto meel uun ku og. Ismaaciil Mire oo tan iyo maalintuu garaadsaday aan daraawiish dhinacna u dhaafin ayaa ka mid ahaa dadkii aan gumaadkaas ku bixina ka noolaaday. isaga oo aan neef adduunye lagu ogeyn xabsiga berberana laga soo daayey ayuu ku soo dhex dhacay qoladii uu ka dhashay oo muddo dhowr iyo 20 sano ah aanu ku xeer iyo xeratoona ahayn. gabyaa magac dheer buu ahaaye waa loo xoolo gooyey. neef irmaan oo uu carruurta u maalo ayaa lihi iyo maal labadaba loo siiyey. taasise uma noqon deeq intuu isku halleeyo uu reer ku dhaqan karo. soo kolka inuu xoogsadaa lama gudboonaan. ganacsi iyo dukaamo wax lagu gado beero la fasho dhoof dabadeed iyo carro edeg alaab laga soo rogo intaasba Soomaalidii uu Ismaaciil xilliga ahaa aqoon badan uma lahayn. sidaa darteedna xoogsiga keliya ee ay tiqiinay wuxuu ahaa dhaca geela oo waayaabe aan bulshadu ceeb iyo xaaraantoona u arki jirin. si kastaba ha ahaatee Ismaaciil duulaan buu qalqaalay. hadba wuxuu tiriyo gabayo uu farabarnaantiisa kaga calaacalayo wuxuu markii dambe isla helay col aan isagu ammaanduulihiisa ahayn asii uu gabyaagiisa yahay. baad iyo biyo wixii saad ay heli kareen intay awrta ku rarteen ayay galbeed afka saareen. agagaarka ceelka Caynabo ayay ka duuleen. dhowr toddobaad kadib ayay isa sii taageen halkii geerasha loogu baytiyey. mase waa cidla ciirsila show inta laga digniin helay baa laga farxaday geerashiina laga qaxiyey. kolba nin socoto ah waxay inta qabtaan waraystaanba bishii ay duuleen teediyahan baa u bilatay iyaga oo tuludna allaha ka dhige aan neef qurina u soo gacan gelin. anficii ay wateen baa ka dhammaaday. markaas bay mirihii geedaha caloosha ku aamusiiyeen. maalmo kadibna intay haamihii iyo heeryadiiba ka tuureen bay awrtii u rarayd birtii kala maarmi waayeen.
fiiq meesha la yidhaahdo iyaga oo aad ugu rafaadsan ayuu colkii ismaaciil ka duraantay inuu tiriyo gabadhaawad uu eebba kaga baryaayo geela ay doonayaan inuu gacantooda ku soo rido iyaga oo u ballanqaaday haddii wax la helo in hasha gabay uu isagu qaadan doono maanseyahanada kale ee colka la socdaana aanay kula murmi doonin. maalintaas buu ismaaciil mariyey gabay qurux badan oo si daawashadiisa looga aqbalo uu ku faahfaahiyey hawkarkii ay soo mareen iyo sida ay ugu adag tahay iyaga oo faramaran inay cayn ku noqdaan. intaan haddaba ararta iska dhaafo aan dulucda tixda qayb idinkaga mariyo. wuxuu yidhi gahayrkii wardheer iyo hashii gudurka loo quutay jibaaxeeda geediga hashaan gila ka soo raacay hashaan guri caskeedii tirshay ee gama la ii diiday ganuunkeeda xoor ka leh hashay gocatay laabtaydu hashaan uurka uga soo gingimay 10 geed qaaqle gob cadaysa iyo dheen hashaan guranayee xaabay wax kastaba aan gooye hashaan labada goos daashay gaadiidka xoogga leh hashuu garabku naafoobay gurgurshaaga awrka hashii galowda loo taabtay gorra dhigaha haamaha hashaan garangarshee xooray raggii wada gamuuraa hashuu gorongolee dhuubtay hashii kabaha gaarkooda sare dhaguxu googooyey guntigeeda maradii hashuu igu garooroobay guuriya boqoraba hashuu galowgu eedaamay saarada gabowgaa hashaan geli dhow moodaye gorofkeedu marayey hashii laga gabaarayey galbeedii hashii loola kacay adari guudkeeda gurigii amxaarada hashii garagashee dhaaftay faalkii galayd iyo hashuu mara ka gaafnaaday iyadoo hilaac garac yidhi oy garowa soo raacday iyadoo daruuraha gabdhamay bira ku soo guurtay ragga gobolkii wuxuu moodayaa inaan la gaarayne garaadaysanoo layska daa gaf iyo faankii iyo inay taladu kugu gooni tahay gararkas gaabkii iyo guulow allow waa fogaa gurigii caymeede oo kama goyoon karo colkuye gacanta noo buuxi buu yidhi. halkaa markuu maraayo ayuu colka xusuusanayaa ballanqaadkoodii hasha gabay ku saabsanaa inay ilaaliyaan. markaas buu tixdii ku soo gunaanaday adinkuna halgeeraashihii golaha soo jooja oo wacadka qaar lama gogtee gacala isiiya buu. geel ma heleen mase iyaga oo hungo ah ayay cayn iyo nugaal isaga caymadeen? waa su'aal ismaaciil iyo raggii uu maalintaa ka midka ahaa ay la godgaleen. waxaase hubaala inuu tiriyey tix wax badan inaga baraysa maantaas oo kale karintii uu maanseyahanku colka ka dabooli jiray iyo mararka qaarkood dhibaatooyinkii ay hawshaa ka mudan jireen. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.